warhaya social media ku jira share dhageyso waa ka warhaya okay hargeysa iyo muqdisho waxay ila tahay Mrs. Wall gabadh liidatid bay ila tahay gabadhaas kartideeda ma garatay waxba hadda hadii lagu xirana rag ma xabsi loo sameeyay muqdisho iyo hargeysa mid waxa oranaysa hore u soco mid waxa oranaysa dib u jeeso gadaal bay u noqonaysaa 1900 iyo 1800 bay ku noqonaysaa midna waxa dhaysaa hore u soco adduunka la jaanqaad Washington iyo Moscow dhinacood jawaabta kaasbiya hal mid marka jawaabta kaasbiya mid yalla walay jawaabta kaasbiya ii badal su'aash xaqan u leh war Mrs. Wall inta ay garan weyday miyaga ma jawaab adiga hargeysa iyo muqdisho magaalo weeye mid baan qaatay maxaa ku jaban haddii diyaarad laga soo haddii hargeysa laga soo celiyana u dhiman mayside Mrs. Wall baqruux bay ka qaaday celiskii waxba ma ahay xiniye isticmaal mid sheeg cabsi wallahi Soomaaliya cabsi adiga xiniye ku feeri Soomaaliya cabsi labada calankee gaabin lahayd horta midaan ku sheeg hadalkiisii feeri xiritaankii Miss World ayaa keentay trend cusub TikTok oo ka socdo lagu dhahayo mid dooro Muqdisho mise Hargeysa mid dooro inta badan dadka caanka ah ayaa la weydiinayaa live TikTok ayuu ku jiraan taasoo keentay dagaal badan maalin walba waxaad arkaysaa trend cusub hadda waxaad saa'id uga socotaa Muqdisho versus Hargeysa dad caan ah ayaa waxaan wada keentay fans badan inay isgalaan ay madaxa isgalaan ay saa'id isku dagaalaan commentiga dhexdeeda Mrs. World Hargeysa ayaa lagu xiray Muqdisho meeshan intee ka soo galaysaa waan ognahay Miss World waxay ka socotaa ay ka soo jeedaa Muqdisho laakiinse miyay ahayd in Muqdisho iyo Hargeysa la isku qabto waa laba magaalo oo magac leh horumar leh dad waaweyn oo magac leh dunida meel hore saaran ka imaaday miyay fiicneed labadan magaalo in la isku qabto waan ognahay anaga inta badan Soomaalida markii wax walba trend iyo xataa challenge ciyaar ah inta u badan waxay isku bedeshaa qabiil hadda qof walba oo caan ah ayaa la soo qabanayaa qofka markii la weydiiyana wuxuu dhahayaa cabsi waa ogtahay qofka caan markuu yahay uu Soomaali yahay inta Soomaali dhul walba Soomaali ah waa laga taageeraa kuma xirno meel uu ka imaade kali waxaa keenaysaa dad badan inay aamusaan markii su'aashaas la weydiiyay hadda sida arkayseen Shiin Culi wuxuu weydiinayay qurux ku dhiigle qofka caqliga leh dhiiqa kuma dhacayo laakiin qofka caqliga lahayn oo markiiba suufinimo qaado u fududaado dhiiqa ayuu faraha la galayaa sababta ah fanska kama imaadaan meela u dhalatay meela ka dhalatay dadka meeshayna dadka aad ka dhalatay meela ka soo jeedaan ee dunida meel walba oo Soomaali ah joogto ayaa laga taageeraa su'aal miyay fiicneed in trendigan la bilaabo trendigan waan ogsoonahay ujeedada ay tahay in dadka Muqdisho iyo Hargeysa oo iyagoo isdagaalsanayeen in madax la isku geliyo inta u badan social media Soomaalida wax kale kama taliyaan waa dagaal usbuucan hadduu dagaal bilaamo oo usbuucan haddii la dago usbuuca kale dagaal ayaa la hayaa mararka inta u badanna waxaa arkaysaa dad waaweyn oo sii farawadaan oo dagaalka gaas ku sii daarayaan oo kusintihiin Soomaali qofkii dagaal u bilaabo horay ayay u sii wadaan midda kaleeto dadka trendigan bilaabeen waxay rabaan qof inay dhiiqa farax la geliyaan maxaa u malaynaysaa dadkan caanka ah su'aalahan inay isku weydiinayaan first waxaa waaye halkii qof oo caqliga lahayn in la arko inuu hal dhinac ka soo jeedo uu fanskiis kale isku diro midda kaleeto waxaa waaye dagaal sababta ah
Soomaalideena u fiirso maalimaha dagaalka ah video qofka markuu soo gelinayo oo maalimahaas magaciisa la hayo viewskiisa kor ayuu u kacaa subscribe-na kor u kacaa inta badanna dabka noocaas ma qaboobo maalimaha kaleeto oo dagaal jirin xitaa dadkan malaayiin subscriber ka wataan maalimaha dagaalka jirin wax zaid u daawado ma laha kasoo qaad CK Idrisle video maalmihii duwayaan oo caadiga ah wax zaid ugu mashquula maaha laakiinse markay dagaalaan waxaa arkaysa subscriber inuu caadi ahayn views inuu caadi ahayn xitaa ayaga way ku haystaan midda kaleeto dadka caanka ah waxyaalahan waxay u bilaabaan inay faa'iidaystaan dadkana isku diraan dadka ayaga is cunaan qof waxaa arkaysaa saaxiibo ahaayeen hal mar isku dhacayaan waxaana waxaa ka dambeeya waxay uga helayaan waxay ogyihiin faa'iidada leedahay qofku markuu ganacsi ku jiro meeshii faa'iidada leedahay ayuu faraha la galaa YouTube iyo social media waxay ahaato inta u badan wax views lahaay ayaa jira waxa views kor ku kicinaya ayaa qof walba soo raadiya mise uu faraha la galaa hadda Muqdisho iyo Hargeysa la isku diraayo keentay dagaalkii mise xiritaankii Mrs World maxaa u malaynaysaa qofkii u fadhiistay oo ka fikiray trendigan qofkii u fikiray trendigan ka fikiray qoray uu ka faa'iiday dad badan waxaa arkaysaa ka faa'iidaan dagaalka dadka markay is dagaalayaan dadka caanka ah way ka faa'iidaystaan way ogyihiin viewska lacagta u keenayo Muqdisho iyo Hargeysa la isku diraayo oo dadka feeraha la isku gelinayo dadkan caanka ah shaqadooda ma aha meel ka imaadeen waxay ku xiran tahay viewska ay helayaan hadda Muqdisho iyo Hargeysa waa laba magaalood oo kala weyn laba magaalood oo magac leh kala duni ah dadkooda kuwada nool uma hal luqad ku hadla laakiin maxaa u malaynaysaa dadkan caanka ah hadalahan isku soo celinayaan dadka Muqdisho iyo Hargeysa isku dirayaan faa'iidadeeda ay keenayaan dagaalkan waxaa la isku diraayo ayay faa'iido u tahay faa'iido weyn ayay ku xiran tahay Muqdisho fans iyo Hargeysa fans ayaa faraha la isku gelinaya dadka YouTubereedana malaayiin ayay ka hagaajinayaan miyay fiican tahay dadka la isku diraayo reer Muqdisho iyo reer Hargeysa waa hal dad ah waa walaalo trendigan adiga muxuu kula yahay dadka caankana ka faa'iideysanayaan maxaa dhihi lahayd